soo dhawaada mudanayaal guddigaas guddoomiyihii waa xanuunsan yahay guddoomiye ku-xigeenkii guddiga cabdiraxmaan jaabis samatar ayaa hogaaminaya markaa isagaa barnaamijka insha allah inuu soo gudbin doono soo dhawaada mudanayaal bismillah alxamdulilah guddoomiyaha golaha wakiilada cabdirashiid yuusuf jibriil cawl guddoomiye ku-xigeenka koowaad cismaan cabdicasiis cabdullaahi cismaan guddoomiye ku-xigeenka labaad ismaaciil maxamed horseen maxamed xubnaha golaha wakiilada howlwadeennada saxaafadda mudane guddoomiye mudanayaal iyo murwo dhammaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan iyo qadarin kadib annagoo ka duulaynaa qodobada 42 farqadiisa 8aad iyo qodobka 62 farqadiisa 4aad ee xor hoosaadka golaha wakiilada waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa warbixinta guddiga ee muddadii u dhaxaysay labada kalfadhi waana sidan guddigu waxay wada shaqayn leeyihiin kow wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyiinta labo guddiga ku-meel gaarka ah ee doorashooyinka puntland tiibeg saddex hay-adda maaraynta masiibooyinka puntland hadma haddaba warbixintan oo kooban wuxuu guddigu ka soo diyaariyey warbixinadii ay u soo gudbiyeen wasaaradda iyo hay-adaha ay golaha ugu xil saaran yihiin waxqabadka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka iyo dimuqraadiyiinta waxaa u qabsoomay waxaa la dhisay golayaasha deegaanka ee degmooyinka qaar ka mid ah sida Jariban Benderbeyla iyo degmada Qandala waxaa la daafuray barnaamijka JBLG wejigiisa saddexaad oo ka socda 12 degmo iyo 56 mashruuc oo lagu horumarinayo degmooyinka qaar waxaa kulamo wada tashiyo oo lagu xoojinayo xiriirka dawladnimada Soomaaliya lala qaatay dawladda goboleedyada iyo dawladda federaalka iyadoo xoog la saaray wada xaajoodka siyaasadeed ee ku aadan geedi socodka dhismaha dawladnimada Soomaaliya waxaa socda dadaalo lagu xoojinayo nabadeynta iyo dib u heshiisiinta beelaha dirtu ku dhex martay deegaanada Boocame iyo Kalabaydh oo ka tirsan gobolada Nugaal iyo Sool waxaa la qabtay kulamo wacyigelin ah oo ku saabsan hirgelinta nidaamka xisbiyada badan iyo doorashooyinka daahfuran waxaana lagu qabtay qaar ka mid ah degmooyinka Puntland waxaa dib u dejin loo sameeyay dad gaaraya 958 qof dadkaas oo laga soo barakiciyay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool iyadoo la dejiyay magaalada Gaalkacyo lana gaarsiiyay gurmadka noocyadiisa kala duwan dabcan baahiyii ka jiray halkaas qorshayaasha wasaaradda dhisida golayaasha deegaanka ee qaar ka mid ah degmooyinka Puntland dhamaystirka hirgelinta soohdimaha degmooyinka iyo gobolada waa kala xadaynta degmooyinka iyo gobolada qabashada kulamo kor loogu qaadayo barnaamijka geedi socodka dimuqraadiyadda baahinta siyaasadda barakacayaasha sharciga qaxootiyada diiwaangelinta iyo dib u dejinta qaxootiga ama barakacayaasha caqabadaha jira waxa weeyaan habsami u socodka shaqooyinka iyo shirarkii qorshaysnaa oo ay saameyn ku yeeshay caabuqa COVID-19 qoondada arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyiinta ugu jirta miisaaniyadda oo aan ku filnayn hawlaha iyo qorshayaasha shaqo boga saddexaad arrimaha doorashooyinka Puntland waxqabadka dabcan guddiga TPEC waxaa la dhammaystiray habraacyada doorashada oo ay ka mid yihiin kow habraaca ka qaybgalka haweenka iyo qaybaha nugul ee bulshada hagaha korjoogtada maxalliga iyo kuwa caalamiga ah waxaa la soo iibiyey mashiinka kaararka codbixiyaha daabaca qalabkaas oo ka kooban mashiinka sameeya kaararka iyo 5 daabace ama printers oo lagu daabaco kaararka iyadoo aysan suuragal ahayn in kaararka
la samaysto waxaa diyaarin iyo hubin lagu sameeyey seejooyinka ay doorashadu ka dhacayso iyada oo laga duulayo qabashada doorashada hordhaca ah laguna kor shaqaynayo goobaha iyo xuduudaha maamul ee 3 degmo waxaana goobaha laga codayn doono laga dhigay 54 seejo waxaa la hirgeliyay xafiisyada gobolada degmooyinka shaqaalaysiinta howlwadeennada iyo tababaridooda waxaana bishii Agoosto 2022 laga hirgeliyay xafiisyada 9 gobol xafiisyada 9 gobol ee Puntland iyadoo si daahfuran lagu qaatay dhammaan shaqaalaha ka howlgelaya 9 gobol sidoo kale iyadoo laga duulayo qiyamka asaasiga ah waxaa tababaro loo qabtay dhammaan shaqaalaha xarunta dhexe shaqaalaha 9 gobol iyo shaqaalaha kaadh qaybinta waxaa la gudbiyay la kala saaray sidoo kalena la baahiyay musharaxiinta 3 degmo iyadoo la shaaciyay jadwalka doorashada hordhaca ah ee 3 degmo kaasoo ay ku xusnayd waqtiga soo gudbinta musharaxiinta golayaasha deegaanka ee shuruudaha laga rabo in la soo dhameystiro ilaa maalinta doorashada waxaa sidoo kale jadwalka ku cadayd maalinta ugu horeysay ee lagu soo gudbin karo iyo maalinta ugu dambaysa oo ahayd 20 bisha 8aad ilaa iyo 4 bisha 9aad 2022 waxaana si hufan loo kala saaray musharaxiinta 3 degmo iyadoo la shaaciyay liiska musharaxiinta golayaasha deegaanka waxaa la dhameystiray daabacaadda kaadharka iyadoo intii u dhaxaysay 20 bisha 9aad ilaa iyo 18 loo qaybiyay dadkii iska diiwaan geliyay 3 degmo oo ay ka dhacayso doorashada hordhaca waxaa si habsami leh u soo dhamaaday doorashadii qof iyo cod ee 3 degmo ee hordhaca ahayd degmooyinka Eyl, Ufayn iyo Qardho taasoo lagu doortay golayaasha deegaanka ee 3 degmo waxaa ku tartamay 9 urur siyaasadeed waxaa codbixiyayaal isku diiwaan geliyay markii hore diiwaangelinta 46839 qof iyadoo ay ka codeeyeen 3 degmo 28,854 waxaana la doortay 18 xubnood baa 3 degmo laga doortay oo golayaasha deegaanka oo ay 23 ka mid ah haween yihiin caqabadaha waxaa saameyn weyn ku yeeshay dardargelinta shaqada doorashooyinka hakadna geliyay caabuqa sanfarka COVID-19 dhaqaalihii hay'adda iyo dawladda daneeya iyo hay'adaha iyo dawladaha daneeya nidaamka dimuqraadiyeynta Puntland oo aan sidii laga filayay weli loo helin wacyiga bulshada oo aad u hooseeya sababtayna in waqti iyo juhdi badan la geliyo wacyigelinta bulshada arrimaha bini'aadanimada iyo maareynta musiibooyinka Puntland waxyaabaha qabsoomay waxaa ka mid ah si loo ogaado xaaladda dhabta ah ee ka jirta dalka waxaa la sameeyay sahamo iyo kormeer joogto ah oo lagu eegayo abaarta deegaamada roobku seejiyay iyo xaaladaha ay keenaan ayaxa COVID-19 iyo sicir barar waxaa la isku duway lalana shiray hay'adaha caalamiga ah oo ka shaqeeya arrimaha bini'aadanimo ee Puntland iyadoo ujeedadu ahayd in lala wadaago xogta iyo baahida dhabta ah ee ka jirta Puntland waxaa la qabtay sahamo diiradda lagu saarayo xaaladda nololeed caafimaad waxbarasho biyood iyo amni ee ku sugan yihiin barakacayaasha ku dhaqan xeryaha qaxootiga ee degmooyinka Boosaaso, Qardho, Carmo, Dhahar, Garowe, Buurtinle, Bacaadweyn, Xarfo iyo Gaalkacyo waxaa loo kuurgalay kormeer joogto ahna lagu hayay geedi socodka abaarta iyo saameynteeda oo sababtay biyo yaraan baahsan iyo cunto yari iyada oo xogta lala wadaagay dawladda iyo hay'adaha gargaarka aadami bixiya ee caalamiga ah si wax looga qabto dadka ku tabaalaysan oo gaaraya 188 kun oo qoys waxaa loo kuurgalay kormeer joogto ahna lagu hayaa geedi socodka aafada ayaxa iyo saameyntiisa iyadoo xogta lala wadaagayo wasaaradda deegaanka iyo beeraha iyo hay'adaha daneeya gaar ahaan isbaahaysiga cuntada food cluster waxaa 34 tuulo laga dhisay gudiyada digniinta hore iyadoo tababar lagu siiyay habka aaladda mobilada looga gudbiyo xogta Eyl 9 tuulo laga qabtay Qardho 5 tuulo Dhahar 5 tuulo iyo Dangoroyo 5 tuulo si ay xogta deegaanka ugu soo gudbiyaan xarunta hay'adda iyagoo adeegsanaya mareegta 3022
waxaa la qabtay shirarka isku dubaridka howlaha gargaarka sidoo kalena waxaa la abaabulay shirar la isku xog wareysanayo si loo ogaado xaaladda arrimaha bini'aadanimo iyo u qareemidda dadka dhibaatadu ku dhacday gudbinta warbixinada kormeerka iyo ubuurgalka waxaana la qabtay in ka badan 10 shir oo xiriirinta keliya ah coordination meetings waxaa la abaabulay shirar lagu falanqaynayo ama lagu qoondaynayo gargaarka aadamiga humanitarian forum waxaa dowladda Puntland iyo hay'adaha caalamiga ah ee ka howlgala arrimaha bini'aadanimadu loo soo bandhigay xogta baahida guud ee gargaarka aadamiga ee Puntland waxaa loo qareemay dadka nugulka ah ee Puntland oo gaaraya 193,071 oo qoys iyadoo la gaarsiiyay deeqo kala duwan waxaa la qabtay tababaro iyo aqoon isweydaarsi la xiriira u adkaysiga aafooyinka oo ay ka digista khatarta aafooyinka digniinta qadiman qorshayaasha u soo bandhigidda xogta baahida guud ee gargaarka aadamiga hay'adaha caalamiga ah ee Puntland ka howlgala sahanka la socoshada xaaladda guud ee baahida gargaarka gobolada u qareemidda dadka u nugul dhibaatooyinka aafadu keento ee Puntland kormeerka iyo dabagalka deeqaha la bixinayo la socoshada saameynta xilli roobaadka dhammaanaya December 2021 qabashada shirarka xiriirinta hay'adaha gargaarka ka qaybgelidda shirarka lagu falanqaynayo ama lagu qoondaynayo gargaarka aadamiga dabcan taas waa arrimaha u qorshaysan hadma caqabadaha jira hay'adda aan u madax bannaanayn shaqadeeda iyadoo ay faragelin ku hayaan qaar ka mid ah wasaaradaha dowladda gaadiid la'aan ba'an oo haysata hay'adda iyadoo la awoodin in la gaadho dhammaan gobollada Puntland markii ay wax dhacaan tala soo jeedin mudane guddoomiye mudanayaal guddigu wuxuu tala ku soo jeedinayaa kow in la helo qoonto miisaaniyadeed oo ku filan howlaha iyo qorshayaasha arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyiinta iyadoo lagu salaynayo baaxadda shaqo oo weyn labo in la helo qoonto miisaaniyadeed oo ku filan arrimaha doorashooyinka si loo dardargeliyo himilada lagu gaadhayo doorasho qof iyo cod saddex in la helo qoonto miisaaniyadeed oo ku filan arrimaha bini'aadanimo iyo maareynta masiibooyinka si loo gaadho goobaha dhibku ka dhaco in la kala xadeeyo xuduudaha degmooyinka iyo gobollada Puntland in wax ka beddel lagu sameeyo xeerka doorashooyinka golayaasha deegaanka lana waafajiyo xeerka gobollada iyo degmooyinka gaar ahaan qodobka 2 iyo qodobka 52 dabcan waa markaa guddigu waxay ka howlgaleen meelihii doorashooyinku ka dhacayeen markaa arrimaha uga soo baxay bay u badan yihiin kala soo jeedinta hoose dabcan qodobka 2 xeerka doorashooyinka oo ay guddigu inoo soo qoreen wuxuu tilmaamayaa oo xeerkii lagu shaqaynayay 7 iyo 17 iyo 21 waa tirada golayaashii deegaanka waana xeerkii guddiga doorashada waana xeerkii doorashooyinka golayaasha deegaanka marka xeerkii mudanayaal aynu ansixinay kalfadhigii hore 74aad ee gobollada iyo degmooyinka waxaa laga dhigay 330 ujeeddada markaa guddigu waxa weeye in la waafajiyo qodobkaas qodobka 52aadna waxa uu sheegayaa tirada degmooyinkeena oo markaa xeerka la sameynayay dabcan ahaa dhowr iyo 30 marka ujeeddada guddigu waxa weeyaan labadaa qodob in wax ka beddel laga sameeyo si shaqada guddiga doorashooyinku hayaan iyo dhismaha qaabkaynu hadda u dhisannahay ay isu waafaqaan in la soo magacaabo garsoorayaashii maxkamadda sare oo lagama maarmaan u ah ku dhawaaqidda natiijada kama dambaysta ee doorashooyinka iyo xallinta cabashooyinka ka dhasha doorashooyinka ee loo soo gudbiyo si waafaqsan qodobka 93 farqadiisa 11 ee dastuurka iyo qodobka 12 farqadiisa 10 ee xeerka doorashooyinka golayaasha deegaanka dabcan qodobka 50aadna waa qaba marka taasna ujeedadeedu waxa weeye in doorkii maxkamadda sare ay ku lahayd
doorashooyinkaas si loo helo in lasoo magacaabo in golaha wakiiladu curiyo xeerka muwaadinka oo lafdhabar u ah arrimaha doorashooyinkaas si loo dhaqangeliyo qodobka 5 ee xeerka diiwaangelinta codbixiyayaasha Puntland in guddiga doorashooyinku xoojiyaan wacyigelinta bulshada ee ku aadan waqtiyada diiwaangelinta codbixiyayaasha iyo doorashooyinkaba si muwaadin kasta u helo xuquuqda codbixintiisa ugu dambeyn gunaanad mudane guddoomiye mudanayaal guddigu waxa uu rajaynayaa inuu si laban laabo dadaalkiisa iyo waajibaadkiisa dastuuriga ah ee loo idmaday waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey yaraaday kormeeradii iyo safaradii guddigu samayn jiray si ay xog uga soo urushaan hay-adaha shaqadu ka dhaxayso COVID-19 ka dartiis sidoo kale waxa uu guddigu codsanayaa in wax laga qabto caqabadaha soo laalaabtay guddiga arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda ee golaha wakiilada dowladda Puntland aad iyo aad buu mahadsan yahay runtii warbixin fiican bay ay la wadaageen golaha waliba ay ku soo ladheen tala soo jeedin aad iyo aad u muhiima nidaamka doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda aynu runtii hadda u dhaqaaqnay sidoo kale waxay xuseen inay muhiim tahay si loogu dhawaaqo natiijooyinkii doorashooyinka hordhaca ee 3 degmo in la helo maxkamaddii sare in lasoo magacaabo runtii waa qodob muhiim weeye insha Allah waa masayn mudanayaal goluhu haddii aanu wax su'aal ah mid iyo 2 iyo 3 weydiinayn xubnaha guddiga waan fasaxayaa si ay u fadhiistaan laba mudane ayaa gacanta taagay xildhibaan xaraf iyo xildhibaan caawil xasan daad doonka iyo golaha iyo guddiga waa salaamayaa shaqo wanaagsan bay soo bandhigeen waxay guddigu soo jeediyeen in wax laga bedelo xeerka golayaasha deegaanka sida marka loo eego hadda wax u socdaan ama in Puntland ay gaadho hanaanka xisbiyada badan oo dadka golayaasha deegaanka iyo golaha wakiiladaba sida dastuurka qaba la soo doorto iyo xeerka sidoo u dhigan yahay oo aan moodid in tiro lagu jaangooyay magaalooyinka iyo degmooyinka qaarna ee laga dhigay qaarna BC loo sameeyay iyo sida uu dastuurka dowladda Puntland u dhigan yahay farq weyn baa u dhaxeeya tusaale dastuurku wuxuu dhigayaa degmo walba tusaale garow kale ee golaheeda deegaanka ay yeelanayso iyo tirada golaha wakiilada dowladda Puntland ay ku yeelanayso waxay ku xirnaanayaan habda tirada dadweynaha ee degmadaas marka la tiriyo ku sugan ayaa lagu jaangooynayaa tirada golaheeda deegaanka iyo golaheeda wakiilada xeerka golayaasha deegaanka hadda inoo samaysanaa Puntland 23 sano la soo dhaafay ku dhaqmaysayna wuxuu ahaa mid low number 7 ku cad oo tiro la qoondeeyay oo la isla yaqaan lagu soo dhisayo golayaasha deegaanka marka ma waysan habboonayn maadaama hadda doorasho wan maamulfood la geliyo in lagu saleeyo sida dastuurku qabo oo magaalooyinkan hadda la leeyahay 27 way qaar 33 la leeyahay iyo qodobka dastuuriga ay isdiidayaan marka inaynu qaadano sida dastuurku qoran oo ah in degmo walba iyo deegaanka hoos yimaada juhdi la geliyo waqti la geliyo dhaqaale loo raadiyo tirakoob laga sameeyo kadibna waxa weeye seejo walba la yaqaan mudanaha ka soo baxaya tirada uu ku soo baxayo halka la dhihi lahaa seejo xiran oo maaragtay urur hebel intaas oo xubnood ayuu magaalada kaga tartamaya iyadoo aan la garanayn wax lagu saleeyay marka shuruucdu way inoo dhigan tahay laakiin waxaad moodaa in sharciga golayaasha deegaanka inoo dhigan iyo sida dastuur ku qoran ay iswaafaqsaneen marka waxaan taageerayaa in xeerkaas dib loogu noqdo lana waafajiyo sida dastuurku qabo duruufaha dhaqaale ee ay sheegaan dowladda Puntland waa isla ognahay iyo guddiga doorashooyinkuba laakiin mar haddii aynu rabno in aynu arrintan ka miro dhalino waxaa lagama maarmaan ah si isku tashi ah in aynu ku wajahno oo volunteers ah in dadkeena aynu ku tirino taasaana lagu heli karaa tirada saxda ah iyo sharciga saxda ah ee mudanaha la yaqaan ee bulshadu soo dooratay uu ku soo bixi karo aad iyo aad baa umaadsantay guddiga waxaan rabay 2 arrimood inaan weydiiyo mid waan ku raacsanahay xildhibaan waa ku taageeraya xildhibaan xaraf oo ah inaysan iswaafaqsanayn
xeerka doorashooyinka iyo dastuurka sidaa darteed waxa fiican marka ama in xeerkii wax laga bedelo dastuurka la waafajiyo ama dastuurkii wax laga bedelo xeerkii la waafajiyo laakiin waxa weeye maadaama dastuurku yahay meesha hadhow loo noqonayo marka doorasho ay dhacdo waxa la rabaa dastuurka iyo inay iswaafaqsan yihiin xeerka doorashooyinka arrinta kale oo aan rabo inaan weydiiyo waxa weeye waxaa jira magaalooyin waaweyn oo ka mid ah magaalooyinkeena oo muddo badan aan golo deegaan lahayn golihii deegaanka la kala diray la magacaabay maaragtay maamulo ku meel gaar ah oo 45 beriya kadibna aan haba yaraatee wax dambe oo hadala laga samaynay sidaas lagu baabi'iyey waad la socotaan qof keligiisoo magaalo dhan oo ummadani ku nooshahay jooga oo suu rabo isaga takrifalnaya awoodii oo cid la xisaabtamaysaa uusan jirin mas-uuliyad darrada iyo isla xisaabtan la'aanta ka dhalan kara sidaa darteed kalfadhigii hore halkaanaynu kaga hadalnay in arrintaas wax laga qabto waxaan ka codsanaynaa rabay inaan guddiga la wadaago maxaa guddigu arrintaas uga qorshaysan oo ay tilaabaha hawshaa ka qaadeen maadaama aan golayaashii deegaanka oo degmooyinkaas lana kala diray maamul dambe oo cusubna aan golo dambe oo deegaanna aan loo soo dhisin dadkuna ay u baahan yihiin si mashaariicda ay ku qaataan golayaasha deegaanka inta laga gaarayo doorashada qof iyo codka ay ayagoo golo deegaan usii dhisan yihiin doorashooyinkii oo sii galaan sida degmooyinka kale oo hadda dhacday oo kaleba aad iyo aad baa umahadsantihiin guddoonka golaha wakiilada xubnaha golaha wakiilada howlwadeennada iyo saxaafadda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa soo dhaweynayaa su-aal ma ahayn arrintii xaraf ee tala soo jeedin bay ahayd marka waxaan maraynay in la isla socodsiiyo xeerka doorashooyinka iyo xeerka gobollada iyo degmooyinka marka waxaan ku kaabi doonaa tala soo jeedi mooye taasi cawil su-aasha una weydiiyey waa sax oo halkan goluhu arrintaas waa laisla soo qaaday qorshe gaaroo annaga horta noo qorshaysna ma jiro haddana waa og tihiin oo siyaasadda dabaqaya ee nidaamka dimuqraadiyiinta ah oo waxay ka mid yihiin 47 degmo oo haray oo siyaasaddan hoggaankeedana fulinta ayaa xukuumadda ayaa wada marka siyaasad baa arrintaa laga leeyahay insha allah biidnillahi alkariim waqtigeedana la sugaynaa waa mahadsantihiin xildhibaan xaraf tiisii hadal soo jeedin wanaagsan bay ahayd insha allahu tii kaleetana cawil waxaa ka jawaabay xildhibaan jaabiri waan la wadaagnay xildhibaan cawil waan la wadaagnay wasaaradda boosaaso iyo gaalkacayo konsolkeedii 45 baa u qoran dastuurka waa u sheegnay waana ku celcelinay wasaaradda bay ku maqan tahay arrintaasi marka in ama loo yeero ama wax laga weydiiyo si kasta ha ahaatee hawshaas halkaasay taagan tahay intaasaan ku biiri lahaa wabillahi tawfiiq bismillah waa jiraan degmooyin cawil sida uu sheegayo waa sax weeye oo guddoomiyaha ku-xigeenka guddiga ayaa arrintaas ka hadlay waxaa jira degmooyin la mida oo puntland sidaas oo kale oo laga dhisi lahaa golayaasha deegaanka sida xigalool oo kale waxaa ka soo galay dimuqraadiyiinta puntland ka socota oo siyaasaddaas waqti dhowna insha allah haddii la yidhaahdo waa laga baxayaa golihii deegaanka oo magaranaysaa dee la dhisi jiray oo waxa la gaaray dimuqraadiyiin baa la gaaray waana u kaadsanaynaa insha allah haddii la yidhahdo haddii magaranaysaa dee bilo dambe ilaa 5 bilood 6 bilood haddii doonto waxay gaari kadhaa dee inta deeqbixiyaasha laga helayo doorkii laga sugaayey marka insha allah waxa weeye horumar baa la gaaray oo puntland haddeer waxa weeye maanta waxaa laga baxay waxyaalihii magaranaysaa dee oday soo dooranayay iyo wixii la mid ah waxaan jecelahay insha allah dimuqraadiyiinta dhacday inaynu ku najaxno 47 degmaa haray xataa baarlamaan ahaan innaga haddeer waxaa dhici jirtay waqtiyadii badnaa in oday iyo suldaan iyo wixii la mid ah
haddeer caqabado badan inay soo mareen innaga baarlamaanana haddeer anigoo kalaa ka mid ah insha allah waxaan rajaynaynaa in guul puntland aynu ka gaarno ilaa madaxa ugu sarreeya ilaa madaxweyne baarlamaan golo deegaan insha allah waana najaxaysaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu